waxaanu soo laabanaynaa gudaha waddankani Kenya iyo sheekooyinka la xiriira iyo waxaabihii wargeysada waddankani ay ka qoreen arrimihii ugu dambeeyay ee xaaladda waddankani Kenya. Cabdi hay horta waxaad moodaa maaragtay in maalinka ku xigo dadka aaminsan kelmadda hasla yani qofka danta yar ama qof maaragtay danyarnimo soo maray laakiin in one way or the other kaga soo baxay ayaa waxaad moodaa labada dhinac oo siyaasadda dalka isku haysato ayaa waxay rabaan in kelmaddaas in macno loo yeelo kelmadda hasla waayo hasla nation hadartan ama maaragtay waddanka danyar waxa weeyaan waa halqabsi uu wato ku-xigeenka madaxweynaha dalkani taasina waxay ka imaanaysaa isaga ayaa hadda ka hor wuxuu ku doodaa in uu soo gadi jiray maaragtay digaag inuu soo gadi jiray nolol xogaa yara ciriiri inuu soo maray inkastoo arrintaas aad la isku haystaa goormuu ciriiri arkay taas waa sheeko oo mar kale laakiin haddii aad fiirisid xildhibaanka kabsareed Oscar Sudi oo isagana taageero ku-xigeenka madaxweynaha oo aad u taageero ayaa taariikh ahaan waxaa lagu soo xusaa in uu soo ahaan jiray qof matatu ka shaqeeyay oo maaragtay dadka matatuda u yaro isli yani for example ahaan marka taasi ayaa waxaa loo nisbeeyaa qofkan inuu hasla yahay uu dhibaatooyin fara badan soo maray laakiin arrinta matatuda waxaan maleynayaa dad badan ayaa soo maray oo maaragtay kasoo shaqeeyay marka wargeyska The Standard ayaa haddana maanta wuxuu soo qaadanaya arrimaha ku saabsan xisbiga Jubilee marka xisbiga Jubilee horta power structure-kiisa qaabku dhisan waxaa weeyaan waxaa jira party leader hogaamiyaha xisbiga iyo deputy party leader iyo ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga oo automatically labadaas qof waa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waa Uhuru iyo William Ruto marka waxaa jira party chairman gudoomiyaha xisbiga nin inta badan aan la garanaynin weeye ama saxaafadda inta badan ma soo hadal qaado waxaa la yiraahdaa Nelson Zuyo Ukash wargeyska The Standard hadduu shaashada inoo soo saari karo marka Nelson Zuya waa ninka garab fadhiyo xoghayaha xisbiga Rafael Tuju marka ninkan ayaa waxaad moodaa lead story-ga ama cinwaanka ugu weyn oo wargeyska haddii aan ku soo laabano wargeyska first page-ka ayaa wuxuu qorayaa the hustler fixing Ruto marka ninkan Nelson Zuya ayaa isagana wuxuu soo ahaan jiray matatu buu kasoo shaqeyn jiray waa nin rafaad soo maray iyo sida hadalka loo dhigayo marka front page-ka waxaa ku sawiran isaga iyo ku-xigeenka madaxweynaha marka warbixinta ayaa waxay dhigaysaa the hustler fixing Ruto marka nin isagana danyarnimo soo maray ayaa loo adeegsadaa in uu xiniyaha qabto William Ruto marka ninkan weeye ninka maaragtay shirki xitaa lagu go'aamiyay in William Ruto laga cayriyo xisbiga isaga gudoomiye ka ahaa marka isaguna wuxuu leeyahay anigu horta inta badan saxaafadda ma jeceli inaan maaragtay ka hadlo laakiin nidaamkeena wuxuu yahay go'aamaha aan gaarno waxaa shacabka la wadaaga xoghayaha guud ee xisbiga Jubilee oo ah maaragtay Rafael Tuju taasi haddaan kasoo gudubno waxaad moodaa wargeyska sidoo kale waxaa aad looga hadlayaa in iyadoo dhibaatooyin ay ka dhex ogayiin xisbiga talada hayo Jubilee ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta shalay galab wuxuu ka soo laabtay Paris France marka wuxuu ku soo laabtay waddan ay dhibaatooyin ka jiraan midda awalan waxaa weeyaan laba qof dhimatay Jubilee la isku haysto in maalintu saa u baxay waa tu William Ruto la wareegi rabay sida hadalka loo dhigay la wareegi rabay xarunta Jubilee ee Pangani ku taalo marka waxaad moodaa dadkina waxay aad uga daaleen BBI baa soo socota Raila oo mar leeyahay BBI-da waa kiniinka maaragtay hal mar hadduu qofka Kenyaanka loqo waxaa weeyaan dhibaatooyinkiisa dhan baabi'inayo hala baabi'iye wax walba ha baabi'iye where is it marka waxaad moodaa waxoogaa impatience yani waxaa samarkii ayaa dadka ku yaraaday sidoo kale iskoolaadkan
wasaaradda caafimaadka waxay leedahay covid-19 waxaad moodaa hadeertan maaragtay inuu si laba kaclaynayo George Magoha oo leh maaragtay saaniyo saana la sameynayo hadeertan haddana waxaa la sheegaya in culayska furitaanka dib u furinta iskoolaadka culayska weyn waalidiinta inay qaadan doonaan sababtoo ah waa in sanitizer la gado waa in maaragtay mask loo gado ardayda yani waxaa weeyaan marka qarashaad ay dowladdu leedahay sisi hatunayo pesa saacad kharash kuma bixinayso ilmaha dhinaca sanitizergi iyo face mask iyo wixii la mid ah aad iyo aad marka sisi hatunayo pesa marka hatunayo pesa ayaa runtii waxaad moodaa in wargeyska The Standard sidoo kale wuxuu ka hadlayaa 15 bilyan ayaa bangiga dhexe waxay soo daabacday inta u dhaxaysay 18 bishan no sorry 18 bishii aanu soo dhaafnay ilaa 25 waxay daabacday 15 billion shillings marka wargeyska inkastoo maaragtay arrintu ay tahay arrin expert kaliya unbaa ka hadli karaa iyo laakiin ilaan dowladda marbaa lacagta ka dhamaataa lacagta xanshida ah marbay dhamaataa oo accountkeeda ay ka dhamaataa marka wasaaradda maaliyadda ayaa waxay ka codsataa bangiga dhexe in uu lacaga soo daabaco marka lacagahaas la daabacayo printing of the money ayaa sidoo kale kelmad bangiyada laga adeegsado oo la yiraahdo overdraft marka 15 bilyan ayaa la daabacay si maaragtay mana aha lacag ka soo baxday howlaha yani oo dhaqaalaha dalka halkan maaragtay revenue baa laga soo aruuriya ama canshuur halkan waxaa soo galay maaragtay faynka ganaaxa dadka laga qaado oo maxkamadaha may waa lacag iyadoo sideedii ah la soo daabacay oo lagu soo daray systemka lacagaadka ma aragtay system lacagaha wareegayo marka waxaad moodaa maaragtay horta 15 bilyan lacag aad iyo aad u fara badan weeyaan laakiin dhaqaaliyahanada waxay leeyihiin waa dhaqan jiro oo wuu dhacaa laakiin inta badan waa laga fiirsadaa waxayna inta badan maaragtay arrimahan dhacaan xilliyo aad moodid dhaqaalaha in dhulka lala simay oo haddana covid-19 iyo all sorts of problems haddana deyn baa lagu leeyahay ninkii shiineeska ahaa bisha markay dhammaato sida kirada guriga lagu leeyahay ayaa laga yaabaa inuu telefoon kusoo diro halo wapi deni yangu bishan meeqaad bixinaysaa oo Kenya waxaa soo lacag hadday daawacan karto maxay deynta shiinaha soo bixin lahayd ma iska daabacun ma tahay haddaa iska daabacdid sida reer waamaha u hadal xanshi allow unbay iska noqonaysaa marka nidaam baa lagu daabacaa dhaqaale iyo kharashaad iyo bangiyada caalamka adduunka inay soo martaa loo baahan yahay